daraasad ay sameeyeen khubaro ka soo jeeda dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegayeen in xiriirka wanaagsan oo u dhaxeeya lamaanayaasha isqaba ay sabab weyn u tahay caafimaad wanaagga. cilmi baaristan oo lagu faafiyay majalada la yiraahdo American Family waxa ay socotay muddo gaaraysa 20 sano iyadoo cilmi baaris lagu sameeyay muddada lamaanayaal kor u dhaafay 1600 oo lamaane oo isqabay muddadii 20 sano ee la soo dhaafay. khubarada sameeyay daraasadan waxay sheegayaan in qiimeyn weyn ay ku sameeyeen qab nololeedka qoysaskan 20 sano ee la soo dhaafay iyadoo la baaray xaaladda caafimaad ee qoysaskan waqtiyada farxadda iyo waqtiyada uu khilaafku soo kala dhex galo. iyadoo ay sheegeen in qoysaska muranka iyo khilaafku uu hareeyo ay uga dhawaayeen halista cudurrada lamaanayaasha ku nool nolosha ku dhisan isfahamka farxadda iyo isqadarinta. khubaradu waxay sheegeen khilaafyada qoysaska ay arkeen inay salka ku hayeen arrimo la xiriira dhaqaalaha iyo ehelka lamaanayaasha iyagoo ugu baaqayay lamaanayaasha khilaafka badan inay kaashadaan dadka aqoonta u leh xalinta khilaafyada. سؤالي أرس وعليو بس إسلام باقودي أيدو تجنو ودوكيو أيل أوغادة تالي إلا ما ضلون نضطيو أفكير على لاسكو حائز داري أمي بدن تيكرو وأحي وإكاني فرحي أقولو